kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada maanqaad meediya magacaygu waa xasan xayi cabdulaahi qodobadaan idiin haynana waxaa ka mida lacag intee leeg ayuu ku bixiyey madaxweyne erdogan arooska cayaaryahanka kubadda cagta caanka ka ah ee mascuud ozil malxiisna kaga noqday arooskiisaasi fadeexad qabsatay wasiirada falastiiniyiinta oo qarsoodi mushaarkooda u kordhiyey real madrid 150 milyan oo geni ayay kula wareegtay laacibka murqaweynaha dalka Belgiumka Eden Hazard Chelsea-na ka tagay booliska Mareykankana waxa ay baadigoob ku bilaabeen tuug oo ay ku dhacday arrin la yaab leh mar kale maanqaad meediya ayaan idinku soo dhaweynina waa hagaag qaybaha ugu horeeya ayaan u gudbeenaha ilaawin subscribe inaad dhahdaan isla markaana like-ta iyo weliba commentiga aad ka dhiibataan aragti ahaan waxa qodobadan aad ka aragtaan insha Allah aan ku bilowno madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa malxiis ahaan ka ahaa arooska cayaaryahanka kubadda cagta caanka ka ah Jarmalkana u dhashay Mas'uud Ozil oo jimcihii toddobaadkii dhamaaday isagu guursaday Ozil oo asal ahaan ka soo jeeda Turkiga ayaa tartankii koobka adduunka ee kala hore ka hor waxa uu baahiyay sawirro uu la galay Erdogan waxa ka dhashay caro xamaasad lahayd kadibna waxa uu iska casilay xulka qaranka Jarmalka isagoo aan sabab badan bixinin warar waxay sheegayeen inuu cunsurinimo iyo ixtiraam darro kala kulmay sawirradii uu baahiyay Jarmalkana sidaas uu kaga fariistay Mas'uud Ozil oo guraylaha kubadda cagta ku dheela lugta bidix ayaa haatan da'ada 30 sano jirka ku jira naadiga Gunners-ka Arsenal ee heerka koobaad horyaalka Ingiriiska ayuuna u ciyaaraa waxa uu guursaday haweeneyda ku guuleysatay quruxda Turkiga ee la yiraahdo Amine Gulze waxa uu ka dhacay hotel kuwa raaxada ah oo ku yaala xilliga marinbiyoodka Bosphorus oo ah gacanka kala qaybiya qaaradaha Yurub iyo weliba Aasiya lamaanahani waxay markoodii ugu horeysay isbarteen 2017 laba sano ka hor waxaana ay bishii June 2018 shaaciyeen inay isguursanayaan Ozil ayaa bishii March ee sanadkan waxa uu shaaciyay inuu Erdogan ka codsaday inuu malxiis u noqdo taas oo mar labaad dalkiisa Jarmalka lagaga dhaleeceeyay Helgi Braun oo ah agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaare Angela Merkel ayaa isla markaa waxa wargeyska Bild uu sheegay in qof kasta dhibsaday in Ozil go'aan noocaas gaadho waliba marka la eego sida looga falceliyay go'aankii sanadkii hore la yeeshay kulanka madaxweyne Erdogan waa hagaag wali waxaad naga daawanaysaan warbaahinta maanqaad meediya qaramada midoobay ayaa cambaaraysay maamulka Falastiiniyiinta ee aan lacagta badan haysan haddana la ogaaday inay wasiiradii hore xukuumadda si qarsoodiya mushaarkooda isugu kordhiyeen 67%. waraaqo sira oo soo baxay ayaa muujiyey in mushaarkooda oo ah $3,000 Mareykanka sanadkii 2017 kororsadeen oo ay ka dhigteen $5,000 ergeyga qaramada midoobay ee nabadda bariga dhexe Nikolay Meldanov ayaa sheegay in falka noocaas ahi aanu caqligal ahayn dadkana ka cariisiyay iyada oo Falastiiniyiintu la daala dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale waxaanu intaa ku daray in ra'iisul wasaare Maxamed Ishtaaye aqbalay in habdhaqanka la joojiyo weli waxaad daawanaysaan maanqaad meediya Real Madrid ayaa ogolaatay heshiis ku kacaya 150 milyan oo pound Ingiriiska inay kula wareegto cayaaryahanka murqaweynaha Belgiumka u dhashay Eden Hazard kooxda Chelsea ayaana lacag badan ka macaashaysa laacibkan 13 June marka baaritaanada caafimaadka uu maro cayaaryahan Hazard ayaa si rasmi ah naadiga loogu soo bandhigi doonaa laacibkaas ayaa
352 cayaar uu ka soo muuqday kooxda Chelsea waxa uu dhaliyay 110 gool waxaana koobkii ugu dambeeyay ee Europe League ahaa mid 2 gool u dhaliyay marka ay ka qaadeen naadiga Arsenal. naadiga Lille ee dalka Faransiiska dheesha ayuu 2012 kaga biiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea 7 sano ayuuna Eden Hazard kooxda Chelsea ku qaatay. dhanka kale gudoomiyaha Chelsea Marina Karanoskia ayaa sheegay in xasuusta Hazard uu ku reebay kooxdu tahay mid aan weligeed la iloobi doonin. waa gooye, waa gadiye, waa dhaliya, waana mid macno badan kaga tagay gegida caanka ah ee Stamford Bridge oo ay Chelsea ku dheesho. gabagabada maanqaad ayaad weli daawanaysaan maanqaad media iyo wararka ugu waaweyn dunida oo dhan. markii ay booliiska heleen qayladhaan ku saabsan burcad hubaysan oo guri jabsaday waxay maqleen shanqar xoog leh oo ka socotay gudaha kadibna waxay go'aan ku gaareen inay albaabka jabiyaan. xilligaas ka hor qof shacaba oo aad u argagaxsan ayaa wacay ciidanka ammaanka ee gobolka Texas dalka Mareykanka waxa uuna ku wargeliyay in gurigiisa uu tuug hubaysan u dhacay. askar ka tirsan booliiska oo si buuxda u qalabaysan ayaa weerar ku qaaday gurigaas iyagoo markaas damacsanaa inay gacanta ku soo dhigaan tuugga hubaysan ee lagu wargeliyay. laakiin arrintii ayaa isbedeshay markii mid la yaab leh ay arkeen kadib markii ay ciidanka heleen wax kale oo gebi ahaanba ka duwan tuug ama burcad. dhowr askari oo ku qalabaysan hub casriya, kaamirooyin iyo tooshash ayaa tagay guriga. isla markaana ay daaradda tageen ama barxadda waxay maqleen shanqar awood badan oo ka socotay gudaha. qofka guriga iska leh wuxuu isaguna isku qarinayay meel luuqa wuxuuna ka baqayay in waxyeello ay gaadho maadaama uu filayay tuugga uu soo dhacay iyo ciidamada amnigu inay isgacan qaadi karaan oo ay tacshiirad isweydaarsan karaan. qof ayaa ku jira gudaha ayuu yidhi mid ka mid a askarta. guriga oo dhan waana isku hareeraynay u soo bax bannaanka ayuu sii raaciyay hadalkiisa isagoo dabcan la hadlayay tuugga gudaha ku jiray. laakiin cid uma aysan jawaabin. cid albaabka inay ka furtana u soo dhaqaaqdayna ma jirin marka laga reebo dhawaaqa codka shimbiraha ee uu soo qabanayay makarafoonka kaamirada ay wateen. kadib askartii waxay go'aansadeen inay sii ballaariyaan howlgalka inay toos u wajahaan guriga ayay durbadiiba jabiyeen gudaha inay u galaan waa ay garwaaqsadeen. tooshkii ayaa qabtay deero ordaysa oo albaab dambe ka sii baxays. halkaas waxaa ku soo afjarmay howlgalkii balse arrinta ayaa la yaab weyn ku noqotay askartii waxaana qaarkood la maqlayay iyagoo xoog neeftuuriyana nafis weynna dareemaya howlgalkiina soo gabagabeeyey. guud ahaanna daawadayaal intaasaan ku soo gabagabaynaynaa wararka ugu waaweyn maanqaad meediya. intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno sidaas iyo nabadgelyo.